labada siyaasiba waxay ka hadlayeen munaasabad lagu qabtay hotelka Mansour oo loo sameeyay arday ka qalin jabisay jaamacadda Addis Ababa Medical University gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo isbarbardhig ku sameynaya calaamadaha axsaabta siyaasadda Somaliland ayaa waxa uu sheegay in astaamaha xisbiga mucaaradka ay wadani ay u eegayeen dharka ay xidhaan dadka aaminsan diinta Buddhismka ee ku nooleeshiyada bari isagoo sheegay in murashaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu muuqaal eegyahay Dalai Lama hogaamiyaha ruuxiga ee aaminsan diinta Buddhismka ee gobolka Tibet ee wadanka Shiinaha cagaarku waan garanayo waa calaamada muslimka nabadgelyada moogta midna waa orange waa taqaanaay waa Buddhist waa ku bilaadiinta moogtahay Cabdiraxmaan Dalalaam uu eegyahay Cabdiraxmaan Dalalaam oo Buddhistka iyo Cabdiraxmaan way isku eegay way xiran yihiin labadu yalo iyo green kula isma yaqaan meel lagu yaqaan yalo iyo green sax lama arag adduunka kulmiye garan ma wuxuu ka soo garan ma insha Allah marka baan green kan ku abtirsanayno green waa tiyantii usjeeray green ka ay sinansi sabah green ka hadalka Faysal Cali Waraabe ayaa waxa si weyn u naqdiyay wasiiru dawlaha wasaaradda cadaaladda ee Somaliland Khadar Ahmed Deeriye waxaan aad iyo aad aan u leeyahay astaghfirullah in qof muslima oo ashahata oo aynu ognahay aynu niraahdo isaga xisbigiisu waa Buddhism aad baan uga astaghfirullah Buddhism waa kuwa Burma Rohingya ku gowracaya ma dilaan xataa qof beerkay kala baxaan oo waxay dilaan wax bini aadamka Ilaahay abuurtayba uu ka naxo oo caruurta yareeyaya qof inaga mida inaynu ku niraahdo Buddhism astaghfirullah baan ka leenahay ومركي ugu horeysay taariikhda inta la xusuustay dacaayadaha ololaha lagu soo qaato diimaan laga aaminsanay Somaliland laakiinse waxa la og yahay in xifaalti weyn u dhaxeeyo labada xisbiya mucaaradka ee u ciidiya wadani